لايكتا sheerta subscribe-ka asxaabi aan laga arko dib xusulada ku saara anagoo soo soconaa oo leena wada maanta waan ku faraxsanahay inaan soo booqdo duleedka Jubbaland iyo walaalkay Safaan Deeqsi YouTube-kiisa inaan ka soo muuqdo farxad zaid ay tahay waa ku dhawaay YouTube-ka Safaan Deeqsi maanta inaan soo aadna dalxiiskaanito aniga asxaabteena aad ugu faraxsanay meesha quruxda badan galabta waxa u imaanay ujeedooyin badan marka hore horta ujeedada safarkana wuxuu xambaarsanaa inaan soo aragno miyiga iyo dadku sida ugu nool yihiin iyo nimcada aan magaalada lagu haysan ee miyiga lagu haysto ujeedka labaad aniga iyo ikhro iyo dad badan oo halkan galabta imaaday waxaan u imaanay samaynta kulay filmaan markaas aan soo wadno todobaadyada dhexdooda soo bixi doono intaan galabta joognay dhulka nalama dhigin yacni mar shaax naloo kariyo mar waxa waaye qudaarta dalka naloo keeno oo qara iyo alaabay baan dilnay caadi ahayn sidoo kale waa nala soo dhaweeyey oo intaa meesha joogto dhalinyaro badan oo aad iyo aad u midaysan iskuna xiran dhan walbana iskaga xiran baa magaalada Kismaayo jooga haday noqon lahay social media-da anu maalinka imaanay waxaas lahaa meel waxa tagaysaa baadiya ikhroy oo waxa waaye dad wax fahansan ba aan joogo laakiin meel waxa imaaday aniga wax la fahansiiyay magacay waa habi maanta ani asxaabteeda dhamaan waxaan dalxiis u soo aadnay magaalada Kismaayo duleedkeeda marka YouTube-ka Safaan Deeqsi waan ku dhawnahay walaalkay ani asxaabteeda dhamaan magacaygu waa Maxamed Cabdirashiid oo ku magac dheer Suldaan Muha waxaan ahay dhalinyarta u soo dalxiis tagtay duleedka magaalada Kismaayo marka Kismaayo meel waxay leedahay dalxiis Assalaamu calaykum asxaabta idinhantii waan idin salaamayaa maanta waxaan u soo baxay dalxiis magaalada Kismaayo banaankeeda anigu Aamuna Cabdicasiis Maxamed YouTube-kaana Safaan Deeqsi aad baan ugu faraxsanahay magacaygu waa Amiin Muuse waxaan ahay dhalinyarada maanta u soo dalxiis tagtay duleedka magaalada Kismaayo aad baan u faraxsanahay aniga dhalinyaro fara badan maanta u soo dalxiis tagnay duleedka magaalada Kismaayo waa qara cunay waa shaah cabnay Soomaaliya oo dhan waxa uu sheegay inay dalkooda u soo dalxiis tagaan maanta naga soo dalxiisnoo kaleete dalkeena waa nabad Soomaaliya intaan meel kale aadi lahayn deegaanadeena u soo dalxiis tagno aad u mahadsantiin aad u faraxsanahay jooga quruxda badan maanta inta ku qaadanay waxaan ka soo dhex muuqdaa jinaalka walaalkay Safaan Deeqsi hadii aad Kismaayo waxay leedahay horta gudaheeda marka waxay leedahay hoteelo oo 5 star ay leedahay waxa ay kala leedahay beeray leedahay marka wax kafteeriyooyin oo qurux badan waxay leedahay beer oo hadda qurux badan aad iyo aad midha hadda inaad aragtay waa fila beer aad u qurux badan laga furay oo midha beerta qof kasta uu arkay intaas marka laga soo tago Kismaayo yacni background ahaan ama kor ahaan markii la dhahana Kismaayo dee waxay ku jirtaa Soomaaliya meelaha dalxiis ku qurux badan sababtoo ah Kismaayo waxay koobsatay bad webi beero xoolo intaas Soomaaliya meel isku leh ma bal helaw waa ku mahadsantiin saxaabada daawashadaan daawanaysaan YouTube-kan aan ka muuqano like-ta sheerta subscribe-ka asxaabi aan laga arko dib xusulada ku saara anagoo soo soconaa oo leena